بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed iyo kuwa rajada ay ku jirto iyo kuwa horay u ahaaba inaan la wadaago fikirkan. waxaan iga keenay xaaladda uu waddanka marayo. wax qof mas'uul ah ama ay ku jirto Soomaalinimo ama Islaamnimo ama wadaniyad yar wuxuu ka aamusi kara maaha. sidaas awgeed anigu meesha ma joogo waxna kama qaban karo. marka waxaan rabaa inaan ra'yigayga dhiibto qolo kastana u sheego. oo marka ugu horreysay waddankani in dagaal la geliyo maaha. qof kasta oo ku fakerahay waddankan inuu dagaal geliyo maslaxad waddan kama fakerahayo, maslaxad ummadeedna kama fakerahayo, maslaxad islaamnimana kama fakerahayo. waxa uu ka fakerahayo waxaa weeye maslaxadiisa gaarka ah weeye. qof caaqil ah oo macquul ah suuragal maaha inuu maanta waddankan dagaal geliyo ama magaalada muqdisho uu dagaal ka rido. waad ogtihiin magaalada muqdisho say u burburtay sidii heerkii la gaarsiiyey waad ogtihiin. dadkeedii heerka laga soo saaray dad haajiray oo waddan ka dhaqaaqay oo hantidoodii ka tegey oo bannaankii la dhigay, bannaan cad la dhigay bay noqdeen. dadkaasi way ka soo kabteen saraha dheerdheer oo quruxda badan oo meelaha laga dhisay hoteelada waxaasoo dhan dowlad lukuma laha, dowladda ma dhisin, shacabka ayaa dhistay. shacabka asagoo weliba canshuur dhiibahayuu dhistay. marka maanta in qof Soomaali ah oo muslim ah oo mas'uul ah in uu ku fakero waddanka magaaladan inuu dagaal ka dhaco ama uu dan u bido inuu dagaal abaabulo oo dagaal ka rido, arrintaasi arrin qabanaysa ma aha. taariikhduna waa qori doontaa. dadku waxay u malayn doonaa hadalkayga inaan qolo la safanayo ama qolo la jiro, laakiin taariikhdaa qori doonta. mar meesha waqtigan aan la joogin ayaa laga hadli doonaa. waxaad ogsoon tihiin sayidina cali wiilkiisa xuseen mucaawiya markuu ku qabsaday xukunka isagoo dowladaha islaamka oo dhan xukuma, iska daa xamar ah, dowladaha islaamka oo dhan isagoo xukuma xuseen oo taageerada ugu weyn haysta ayuu xukunkii ka tanaasulay. uu dhahay qof muslim ah dartay dhiig uma daadinayo ama dhiig muslim uma daadanayo dartay uma daadanayo. markaasuu ka tanaasulay. halkaas ayaa waxaa laga garan karaa mas'uuliyadda iyo dareenka ay xambaarsan tahay qofka ay ka muuqato. waxaad kaloo ogsoonaatiin waddankeenna dadkii dagaalka geliyey ee qabiilka noo kala safay ee magaaladan qayb u qaybiyey sida hadda ay ku socoto ama ay jecel yihiin dadka qaarkood, degmo iyo qabiil loo qaybiyey oo jidadka la kala xirtay. raggii sameeyey aaway ma gaareen xukun, ma gaareen. hebel waa dhintay isagoo dhiig gacmaha kula jira, hebel kalena wuu dhintay isagoo dhiig gacmaha kula jira, oon gaarin meeshuu dadka u laayay ama waddanka u burburiyey isagoon gaarin buu dhintay. hebel kalena waa dhintay isagoona dhiig gacmaha kula jira, hebel kalena waa dhintay isagoo dhiig gacmaha kula jira. ilaahay bay hor taagan yihiin maanta ayakoo dhiiggii ummadda muslimiinta Soomaalida laga daadiyey iyo burburkii loo geystay qarankan iyadoo wax laga weydiinayo. mana gaarin hadafkay lahaayeen. saldanadda laguma gaaro, xukunka laguma gaaro, awood iyo xoog laguma gaaro. xukunka waxaa lagu gaaraa ilaahay baa bixiya. ilaahay baa bixiya, qur-aankiisu ku sheegay. marka qofku waa inuu ilaahay aaminaa inuu xukunka u garto. waxaad ogsoontihiin example baan waxaan siinay dadkii isdildilay oo bannaanka jooga ayaa nin weligiis aan qori qaadin, dadna abaabulin, dagaalna ku jirin, balse dadka taakuleeya laanqeyrta cas madax ka ah, allahu naxariistee nuur cadde ayaa la soo qabtay. yaa soo qabanaya? ilaahay baa soo qabtay, u gartay inuu qabto saldanadaas inuu qabto. maanta maxamed xuseen rooble oo ka shaqaynahayay hay-adahan UN-ta ka shaqaynahayay oon siyaasad gelin, oon waxba siyaasad lug lahayn, ayaa haddana ilaahay soo qabtay. wixii dad yaacahayay, dad tartamahayay iyo habeenkii guryaha loogu tagaayay madaxweynaha iyo qabiil la shirinahayay isagoon gelin baa la soo qabtay. marka waxaan leenahay xukunka qof kasta waa inuu ku qancaa xukunka inuu ilaahay bixiyo. saldanadda ilaahay baa bixiya. qofkuu rabuuna ka qaadaa, qofkuu rabuuna siiyaa, qofkuu rabuu karaamo u yeelaa, ciise siiyaa, qofkuu rabana waa dulleeyaa.
dadkaas waa inuu dadku waa inay taas aaminaan xaggay ka baxeen dadka leynahayay waddanka burburiyey ummadda isku diray ummadda laayay gacmahoodoo wada dhiig ayaa ilaahay hor fadhiyaan oo ay ka jawaabahayaan mana gaarin xukunkii ay raadinahayeen oo ay dadka u laayeen oo dadka u baabiyeen mayna gaarin maanta taariikhdii baa mar labaad isqoraysa taariikhdii ayaa mar labaad isqoraysa dadkii baa qabiil lagu kiciyey waad ogtihiin waddan wuxuu ka dhismaa ciidamo la dhisay oo soomaalinimo lagu dhisay oon qabiil lagu dhisin oo waddan muslim oo wanaagsan ee na jecel ee ay dhab ka tahay uu hagaajiyey ee uu dhisay ee waddan kale uusan kuu sameeyeen maybe waddan inuu lacag ku siiyo maybe inuu boorso kuu buuxiyo laakiin dantaada kuma jirto laakiin waddan fahmay meesha waddanka laga haysto in ay tahay inuu ciidan yeesho amnigiisa qaranna ciidan la'aan ma socon karo maanta ciidankii baa la dhex galay qaar lacag la siiyo qaar qabiil lagu abaabulo qaar waxyaabo kale dan kale leh wixii baa la abaabulo ciidankii baa la kala daadinayaa ilaahin baan idinku dhaariyee ciidankii turkiga soo tababaray ee 6 biloodna ku jiray akademigan 6 biloodna turkiga ee ayagoo xoog badan oo qiimaysan oo labisan oo qurux badan oo waddaniyad la soo baray maanta ninka qabiil dhex gelinahaya kala daadinahaya ma dowladnimo ayuu hayaa ma dowladnimo niyadda ku hayaa dowladnimo niyadda kuma hayo wax kale niyadda ku hayaa marka waxaan leenahay dadka madaxda horey u ahaan jiray rabana inay madax noqdaan waxaa la rabaa inaad waddan dhaxashiin aad madax ka noqon kartiin waxaa la rabaa inaad dhaxashiin ciidan waddanka amnigiisa sugi kara waxaa la rabaa inaad dhaxashiin waddan jidad iyo qurux ay ka muuqato oo dadka la imaan karo waxaa jirtay hal maalin aan lagu hoyan karin muqdisho hal maalin one day meel lagu hoydo oo qof la seexiyo ayna lahayn maantana wax hoteella taagan waad arkaysiin ilaa iyo hotel 5 star laga sameeyo ayaad arkaysiin yaa sameeyey ma dowlad baa samaysay mase shacab baa sameeyey shacabkaa sameeyey shacabkii in laga qaxiyo oo la burburiyo madaafiic lala dhaco wiilashan qoryaha wata qaarkood dowlad ma kala jeclaa adigana kuma jeclaa kan abaabulaya ma jeclaa bililiqa qaarkood bililiqay u socdaan waddanka sidii waagii hore loo bililiqaystay in loo bililiqaysta ayay u socdaan dan kale ma laha kuma jecla kuwa qabiil waayihiin laakiin ku qabiilkaaga kuma tirsana aday berrito gurigaagay bililiqaysanahayaan aday ku bililiqaysanahayaan xafiiskaaga ku bililiqaysanahayaan markaa dabka qoryo u dhiibtid ee dabka u shidid inaad dabka damisid way adkaan doontaa qoryahaas markay xabaddu ka baxdo xabaddii in la soo celiyo way adkaan doontaa walaalayaalow madaxdii waddankay ka fiirsada tilaabadaha aad qaadaysiin maanta ka fiirsada maantaad fursad haysatiin inta waddanka ayna xabad ka dhicin oo uusan dagaal ka dhicin baad fursad haysatiin intaasaad fursad haysatiin gacantaada kuma jirayso go'aankaagana ma noqonayso markay xabaddu dhacdo oo xabaddu bilaabato ma noqonayso waxaa laga yaabaa adiga naftigaaga inaad ka carartid baa laga yaabaa ood waddanka isaga fakatid waxaan leenahay marka arrintan dib loogu noqdo arrintan ha la heshiiyo 30 sano ayaan maraynaa cali mahdi iyo caydiid 2 sano ayay ku heshiin waayeen 2 sano ayay isugu sabri waayeen 30 sanayna marsiinahayaan iyo burbur iyo sharafkeen iyo karaamadeen ay burburtay ayay maraysaa 2 sano maxay dhaxashiisay 30 sano arrintan waxaan leenahay waan gala wada hadal gala dadku qalbiga isu fura qalbi xiran af been ah laguma heshiin karo qalbiga isu furay wada hadla waddanka maslaxadiisa ka wada hadla waxaad ka fikirtiin ha ka fikirina maanta today ha ka fikirina ka fikira 100 sano soo socota ilmahay dhalaan ilmahay sii dhali doonaan siday u noolaan lahaayeen ka fikira iyo meeshay ku noolaan lahaayeen iyo sharafkii iyo siday ku lahaan lahaayeen adduunka ka fikira markaad adigu ka tagto meeshan aakhira u hoyato ilmahaaga meeshay ku noolaan lahaayeen ka fikira qaxooti miyaa dulli miyaa la duleysanahay iyo sid in la yeeso magaca soomaalida miyaa hadday soo kabatay way soo kabatay dhalinyaradii soomaalida ee qaxay qaarkood ku dhashay yurub qaarkood maraykan ku dhashay hadday soo wada noqonahayaan rajaa soo gashay waddankii in dib loogu soo noqdo dib loo dhiso ayay rajo soo gashay nin kasta waddankan inuusan u dhan u arkay waddankaana u dhashaan aadahayaa buu leeyahay ka fiirsada maantay tala idin bannaan tahay berrita idinma bannaana taladaas maantaa tala haysiin
maanta tala haysin wadamo ajnabi ah oo maslaxadooda ay ku jirto burburka Soomaaliyeed oo maslaxadooda ku jirto Soomaaliya oo daciif ah oo maslaxadooda ay ku jirto Soomaaliya oo qaybsan oo maslaxadooda aan adiga dan ka lahayn laakiin dan kugu fushanaya oo berrina ku hadlaynahay soo magaran taariikhda fiirsada wadamadii civil war ka dhacay iyo dadkii aasaasay iyo meelaha ay ku kala dambeeyeen fiirsha warba Liibiya fiirsha wadankii qaniga ahaa ee lacagta Afrika iyo adduun kasta ku tabarracahay ee waadiyada sameeyay artificialka maanta xaq ku dambeeya xaq ku dambeeya guddiga maamulka la dhahay guddi maamul ma dad baa maamul ku heshiin kara aan kala dambeyn lahayn guddi maamul ka fiirsada taasi waa inta siyaasadda u hanqaltaagaysa oo mas'uuliyiinta soo ahaa oo haddana rabo inay mas'uuliyad waddankan ka qabtaan tan kaloon la rabo inaan la hadlo waxaa waaye waa madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne saaxiib baan nahay aniga adiga saaxiib baan nahay muddo badan nin aan jecelahood wanaagsan baa tahay oo niyad wanaagsan ilaahay baa dadka ku jeclaysiiyey adoo 6 bilood jooga ayaa si dulmi lagaaga qaaday waad iska tagtay waad sabartay waad iska tagtay ilaahay wuu ku abaalguday wuu ku soo celiyay adoo madaxweyne ah ummadii dhamayd Djibouti Somaliland Ethiopia Kenya meel kasta Soomaali kastoo jooga ayaa laga dabaaldegahay shalan waxaan arkay mudaaharaad burca ka dhacay ee ay leeyihiin maxamed cabdullaahi farmaajo ha noolaado ummadda dadka ilaahay baa jeclaysiiyay laakiin haddana xaaladda waa inaad miisaantaa xaaladda ay marayso waddanka marayso waa inaad miisaantaa waa inaad karaamo ayaad ku soo gashay karaamo aad uga tagtaa waa inaan karaamo lagaa qaadin karaamada inta laga qaado waddankana karaamada in laga qaado weyn waa inaad fakartaa xaaladda hadda ay waddanka taagan tahay waa inaad ka fakartaa xaaladda ay waddanka taagan tahay dadkani kula dagaalamahaya ama ku diidan dad badan oo waxa ku jira dawladda ajnabi ah soo hogaaminayaan dad dawladda ajnabi ah ay ku danaysanayaan ku jira dad waxa jira mashaariic oo qoran yihiin dad waxa jira dhaqaale la siiyo dad waxa jira lacag oo la siiyo dantooda ay ku gudanayaan ay ku bedelanayaan danta ummadda Soomaaliyeed waxaan ku leeyahay waxaad soo qabatay 4 sano waa dhamaatay waxaa la rabaa adoo karaamo leh inaad waddanka ka tagtid the best option markaan fiirina xaaladda hadda ku jirta waan jeclaan lahaa inaad 4 sano kale aad u haysatid oo directionkaad ku socotid waddanka lagu sii waaso waxaad fahamtay waddanka meesha laga dhisaa ciidan inuu yahay ciidan baad dhistay kii aad dhistaa la burburi doonaa waqti baad haysataa karaama iyo sharaf waddanka uga tag waxaan kaa rajaynayaa berrito markaad baarlamaanka tagtid in aad iska dhiibtid oo tiraay Soomaaliya waa soo shaqeeyay 4 sano soo shaqeeyay waxaan rabay wanaag waxaan rabay inaan waddanka dhiso aragtideedaan lahaa laakiin dad baa diiday danahay lahaaba halahaadaan waddankii saasaan uga tegay ama waa mid option ah ama optionka kale inaad tiraahid anigu waan tartamay prime ministerka ha wado shaqada doorashooyinka diyaariyo prime ministerku anagu waan tartamay oo muwaadin Soomaaliya oo tartamahayaan lahay qofku diidi kara ma laha laakiin haddii ciidan la isku dayo in la isu adeegsado ee magaalada ciidankii aad dhistay in lagu burburiyo la isku dayo arrintaasi sharaf xumay noqonaysaa ha ka tegin burbur ha ka tegin waxaa tiri anigu wax ma burburiyaa tiri waxbaan dhisaa waa runtaa dhismada waxaa ka mid ah markii la iskhilaafo ninka go'aanka qaraar ninka qaata oo dadku dhan ayna ka filayn go'aan raganimo leh qaado wallaahi baan la dhahaynin waa la dhifiid garay ama waa laga adkaaday inaan la dhahaynin laakiin qof kasta ajnabi ha ahaado gaaladan hadda sabaabulaysa ha noqoto wadamadan hadda laga soo abaabulay meelaha ha noqoto wallaahi mid kasta inaad wuxuu ku aqaan inaad deeda run atuu ku haysan ka fiirso ha ku degdegin dagaal inaad geshid dagaal faa'iido ma laha magaaladaas yuusan dagaal ka dhicin legasigaaga ha ku dambaysiin dagaal legasigaaga
dagaal ha ku dambaysiinin iyo burbur iyo kala tag iyo qax waxaan kugula talinayaa iyadoo ay niyad fiican iga tahay waxaan kugula talinayaa waad arkaysaa meesha ay xaaladda marayso laazim waa inuu qof sabraa qolooyinkan waa badan yihiin waxaana laga yaabaa isku ra'yi inayna ahayn hal ra'yi ma laha laakiin adigu hal ra'yi baad leedahay ayagu waxba inayna isku raaci karin baa laga yaabaa war 2 sano ma ogolaanaa war sanad ma ogolaanaa 6 bilood ma ogolaanaa inay dhahaan inayna isku raaci karin baa laga yaabaa laakiin adigu keligaa go'aanka adaa iskale go'aankaas waxaa laga rabaa go'aankaas in aad dhiibatid oo tiraahid anigu ummadda Soomaaliyeed dartayna dhiig uma daadinayso waddankaynagana dartay looma burburinayo hadday ahaan lahayd dantayda in loo burburiyaan anigu waan ka tegahayaa karaama iyo sharaf baad uga tegaysaa waxaan aaminsanahay in lagu soo siyaaran doono bal waxaad fiirisay madaxweynayaasha taga cabdiqaasim fiirsha cabdiqaasim waa la doortay madaxweynuu noqday waa la dulmiyey Soomaali baa dulmisay reerihii ugu dhawaabaa dulmiyey in uu shaqeeyaa loo diiday in uu dowladdii tilaabo qaadaa loo diiday waxaa la iska wada xaadirinayaa Itoobiya hub laga soo qaadanahay yaa lagula dagaalamahay shacabka Soomaaliyeed baa lagula dagaalamahay cabdiqaasim markay muddadiisii dhammaatay Cabdullaahi Yuusuf si sharaf leh ay ugu wareejiyay ma hadlin mar dambe ma hadlin statesman taasaa lagu gartaa ninkii statesmanka liidarka ah midaasaa lagu gartaa cabdiqaasim dib dambe ma ka hadlay siyaasad madaxweyne ma la hadlay ka dambe ma caaye wax ma ka sheegay qaladaadkii jiray oo dhan oo la arkahay waddanka Itoobiya ma la keenay askar Itoobiyaan magaalada ma lagu xasuuqay ma hadlin haddana ma hadlin meel buu iska degay afkiisaasaa dhowran waa statesman waxa la dhihi karo statesman kaasaa ka jira laakiin in madaxdeennii war maxaad xukumaysiin war haddaad maanta dagaal magaalada ku qaadiin eed xukunka dagaal kula wareegtiin yaa idin aaminahaya yaad xukumaysiin waxaan leenahay qoladiinaana tirada badan dib u noqda عندوفت قدال النقطة كرسي ويا هل قفنا ولا كرسي لا بقف ما قادنيس أنتي نبي أدق على ميس محمد عبد الله فرماجة هادو كتو ما أنتي أنا كوهشينيس هادو كوهشين لا يا كوهشينيس مزدلي سين هدنا أدين كم أزدلها إسكا سورجة سنة هي شعب كركي سمع كده قال لي دونتين نجى جوجيا وما بهن أرنتان عمري بعد جوتين حكم سوء أركتين وحدنا 4 سنة كبقى من كيسين هذا وحن لنا هاي صرفة دقالك الدمية هيالك أتصوص أرتين كعلية مقالة كل نقض حريهن ده ودحل ليسين هداد حكم قبتين أدين كان دحل أيكم ملتري هدحل ليسين لكن ملتري فوضاءه قبيل الكالجليين هداد حشين كورها أرنتاس كفير صدى ديبتن بقى كفير صدى محمد عبد الله فرماج مدحوينه waxaan ku soo celinayaa meel xun bay taagan tahay ummad aan waddankan u naxaynin dowladda aan waddankan u naxaynin dowladda cadow noo ah Soomaalinimadeena ka soo horjeeda dowladnimo rabta in nala qaybiyana la burburiyo inaan guryahooda tuugsanno inaan guryahooda ka shaqeyno in gabdhaheena ay ka shaqeeyaan guryahooda oo habeenkiina ay u dhacaan markay rabaan ay u dhacaan intay naagtooda meel geeyaan waxaasay rabaan naga joojiya waxaan leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo adaa maanta fursadda haysta qalinka gacantaadu ku jiraa kuma jiro dadka kale qalinka gacantooda ku jira waxaa waa inay dagaalamaan laakiin qalinka ninka joojin kara waa adiga waxaan kaa codsanahayaa taariikhdana waad geli doontaa in aad arrintaasi aad u tanaasusho waddanka oo waddanka tanaasusho meel laga soo noqdo ma laha hadda waxaan rabaa inaan kelimad ka dhaho doorka culimmada ay ku leeyihiin arrimahan dhacahaya culimmada Soomaaliyeed door baa laga rabaa inay ka qaataan door ijaabi ah oo maslaxad u ah ummadda kama aamusi karaan hadday ka aamusaan wixii dhaca way la qaybsan doonaan dhiiggii taatana waa la wadaagi doonaan waddanka ma laha qolooyinkan isku haysta malaha keligood waddanka waan la leenahay
علماء هداتين وحاتين هوغانكي ومضى marka ma aha inaad ka aamustiin haddaad ka aamustiin raalli baad ka tihiin waxa dhacaya in magaalada la burburiyo in askarta qabiil loo kala qaybiyo in magaalada dagaal laga rido in la qaxiyo dadka in dadka la laayo raalli baad ka noqonaysiin haddaadnaan ka hadlin oo adinkoo wada joogo meel wada fadhiya haddaadnaan ra'yigiina ka dhiibin balse ra'yi ka dhiibasha maaha inaad awood u sheegatiin oo qofkii diida wanaaga aad tiraahin waan kaa hor imaanaynaa kulamana jirno namana mathashid qabiilna naguma mathashid madaxnimana naguma mathashid diin ahaana naguma mathashid waa doorkiina taas culimmada soomaaliyeeday ha gafina doorka aad ku leedihiin qadiyadan ka socota xamar hadda ilaahay hortiis baa laydinka weydiin doonaa dadka ku dhintay oo dhiigooda la daadiyo dadka hantidooda burburiyo dadka la qaxiyo masaakiinta qolo qaxooti iska ahaabaa dagaal lagu kor dagaalama markaasaa lasii qaxiyey ilmahoodii waxaan arkaya facebookan waxaan ku arkaya islaam duudkana ku sidata waxay haysatay intay haysatay ilmihiina gacmaha ku haysa waxay lamid tahay dagaaladii waagii baydhabo ee islaan ilmaheedii kasoo tagtay hal canug wadata canugay kasoo tagtayna oo gorgor canugii oo nool gorgor uu kor fadhiyo oo laga helayaa facebookyada waa laga helayaa waxaan soo marnay dib ha loo xasuusto ha lagu soo celiyo dadka filmkaas waa in la shidaa waxaan soo marnay inaan mar labaad ilowno si sahal ku ilowno masaajidda waaweyn baan dhisnay salaad baan tukanaynaa ummaddana horteennaa lagu laynahayaa ummaddana horteennaa lagu baabi'inahayaa danahoodii iyo maslaxadoodii baa la baabi'inaya wax idinka yeelaya ma jiro wax idinka ilaahayna idinkama yeelahayo ummadda soomaaliyeedna idinkama yeelayso ummadda muslimka ee caalamka joogtana idinkama yeelahayaan arrin ayaan ciidamada leeyahay saad u ekaydeen xasuusta shaar duuta ah iyo sarwaal sibil ah iyo dacas iyo sandal iyo funaanad hal tuutoon la dhaqaynin 2 asbuuc oo markaad dhaqaysid guriga aad ku hooyanaysid guriga joogaysid sababta waxaad ku bedelata ma lihid iyo maanta quruxda idinka muuqata iyo sidaad u egtihiin iyo xoogga aad leedihiin iyo sida laydin dhaqaaleeyey arka ma qabiil baa samayn kara taas horey qabiil baad u ahaydeen dagaalyahan qabiil baad ahaydeen maxay idin siiyeen waxba idinma siin wax ay idin siiyeen ma jirin waa idinku adeegteen dadka idinku laayeen ayay ka danahooda isku fushadeen kuwii ku dhaawacmay aawa kuwii dhabarka ka jabay aawa kuwii dhabar ka jabay ee dareenka qaarka dambe dareenkii ka baaba'ay in kaadida cishan karin xaarka cishan karin ee u dagaalamay shakhsiyaad u dagaalamay ee markii dambe gurigooda laga xirtay aawa kuwaas mar labaad miyaad haddana dariiqii maraysiin xooggaan idinka muuqda ma lahaanaysiin joojiya xabadda dan idin ma aha ninka xabadda irida waxaan arkaya geel loo idiin wada keenayo war maxayna geel awal idiin siin waddan baad difaacayseen geela maxaan awal idiin siin maxaan hilibka laydinkugu qalin awal waddan baad difaacayseen shabaab baad ka difaacayseen laakiin markii dhiigga soomaalida uu noqday baa geel idiin keenay dhiiggaaga ma waxaad ku doorsanaysaa neef geel ah dhiiggaaga ilaa xabaddu markay bilaabato qof ku dhiman doono ma ogid waad dhiman doontaa markaad dhimatidna ilaahay baad la hortegaysaa adigoo dhiig islaameed qaba dhiiggaagii marka qiimahaagii dhamay naftaadii qiimihiisa ma waxaa lagugu maslixi odayada gararka waaweyn ee beenta ah waxay kugu maslaxayaan inaad cimri inuu yahayba noloshaada dhanba inay geelaas tahay oo geel baa naloo keenay hilib baa naloo qalay waa maxay war adigu ma hilib baad joogtaa adigu ma waxaad ku qiimaysan tahay hilib lagu keeno markaad qadiyadda saxda ah ee waddankan difaacaysa maxayna isoo aruurin hilib maanta is aruurinayaan hilib qiimahaagu hilib maaha ku noqo xeryahaagii ku noqo qaran baa ku qurxiyey qaran baa aad ka tirsan tahay qaran baad leedahay ku noqo kaas ayaa ku qurxin kara ee qabiil kuma qurxin karo ku noqda meelihiinni waa haddaad dhab ay kaa taho ciidan dhab aad tahay kuwii ayaa mooryaan baa hadda annaka isaga keen dhigayna ciidan qaarkood oo naqaanaba meeshay ka yimid waxay yihiin aan ogna garaado beenahoo gedgaduudan baa lagu wataa markaasaa lagu hadlahayaa
كفير صدى كن نقد حريهني دن هالكاس إذنكم جرتا دن إذنكم ما جرتو إن أنت حمر سوق شين رجعان سياسة دن تكله يا مارتي أي حول إذن خيران اللي إذن كل أي ماشي كل متين أما أدوح كل شيء دن إذن ما كن نقد حريهني أيام بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.